waalidiinta ardayda qalinjibinaysa dhammaan walaalaha iyo gabdhaha la socdada iyo jaamacadaha waxaan idinku salaamayaa islaamka oo ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib maanta waa maalin weyn oo runtii maalin weyn u ah bahda waxbarashada gaar ahaan iskuulka imaam maalig oo ah iskuul weyn oo runtii ka mid ah iskuullada ugu tayada fiican ka shaqeeyana waxbarashada gobolka banaadir. anaguna ka agaasin ahaanna aan aaminsanahay in iskuulka imaam maalig uu yahay iskuullada ugu ardada fiican markii la yidhaahdo imtixaanaadka dugsiga sare iyo markii la yidhaahdo imtixaanaadka dugsiga hoose. waxaa maanta halkan aan isugu imaanay dhammaanteena ma ahan inaan is-aragno oo keliya in ardada foonfoorka ah oo imtixaanka dugsiga sare fasalka 12aad ka qalin badashatay inaan u hambalyeeno oo aan dhahno hambaliyo ardada iyaga sidoo kalena imtixaanka isdiidaad galay oo iyaga baasayna inaan dhahno waa idinkuna hambaliyo maadaama aad ka gudubteen darajo ama heer kale oo aad ugu gudubteen fasalka dugsiga sare oo iyadana muddo kadib aad dhammayn doontaan. waxaa halkan igaga muuqda waalidiin fara badan iyo ardaydii oo ay dhaleen oo runtii soo maray broseeskii iyo hanaankii waxbarashada oo u soo dadaalay inay waxbartaan uga soo bilaabay fasalada dugsiga hoose ilaa inay ka qalinjibiyaanna intaas ku garab taagnaa. sida ardada maanta loo garab taagan yahayna dhammaanteena macallimiinta iskuulka iyo maamulka iskuulka iyo aniga idin hor taaganna ee waalidiinteena saasoo kale loo garab taagnaayeen anaguna aan kaga soo gudubno heerkii waxbarashada inkastoo waxbarashadana aysan dhammaanin oo ilaa iyo inta cimrigeena ka dhiman qofka ugu sareeya PhD-ga wata markaas arday uu yahay uu wax baranayo. sanadkii hadda la soo dhaafay ardada 10 ugu horeysa oo imtixaanka 8 gashay waxaan ugu wacnay xafiiska agaasimka waxbarashada gobolka banaadir. waxaa ku jiray maamulaha iskuulka ustaaduga jooga iyo ardaydii kaalintkooda u gashay oo runtii ay ahaayeen arday dhallinyara aad u yaryar. iskuulka imaam maaligna uu ahaa role model ama iskuulkii ugu sareeyay ardada imtixaanka meeshaasi ka gashay. waalidiintii ayagana way la socdeen saasoo kalena waxaan rajaynaynaa ardada imtixaanka 8ka ayagana kaalimaha ka galay iyo kan dugsiga saraba in waalidiintooda iyo ardadoodana aan wacno waxay mudan yihiinna aan siino.